Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo fiqi hadalkiisa wareysiga uu baxshay. Haddaan nugu cusubtihiin subscribe-ka laagta noo saara. Haddaan ku sii socdo, fiqi wuxuu dhahay mowqifkooda say u caddeeyeen reer Sool garaadadooda iyo odayaashooda. Saasoo kale laga rabaa reer Awdal. hadalkiisa ila dhegeysta. kooxda hadda Hargeysa joogta oo gooni-goosadka ah oo runtii xaalad disparate ku sugnayd oo quus iyo niyad jab xoogani uu soo wajahay mashruucii ay gadayeen 30 sano lasoo dhaafay uu burburay, taasina ay noqotay inay kula cararaan halkaas oo ay isku badbaadiyaan arrintaas oo ay fadeexadii ay la kulmeen sanadkii lasoo dhaafay bilihiisii Agoosto iyo wixii ahaa inay halkaa kula cararaan oo ay noqoto iyo taliska Ethiopia oo asaguna runtii dadkiisii iyo dhibaateynayay oo burburiyay magaalooyin iyo qowmiyada dhan kasoo taqaluso marka inay intay isku darsadaan naf iska raadiyaan. arrintaasi dowladda Soomaaliya dee kursigan hadda wuxuu keeni doonaa in the position weyn laga sii istaago, waxaanan dhihi doonaa argagixisada hadda dalka meelo ka mid a joogta iyo damacaasba kursigan difaac weyn buu u noqon doonaa. waxaanan aaminsannahay in dalka Soomaaliya aysan mashruuca kala go'a iyo package-ka isku xiran oo la isku xiriyay ayaamihii lasoo dhaafay inuu wax badan uusan sii jirayn oo burburay package-kaasi. reer Awdal oo aad sheegtayna runtii dee dhulka hadda oo lagula soo heshiiyey waa dhulka Awdal. waajib gaar ah saaran dadkaas marba dad baa waajib saarnaayeen. mowqifka dowladduna waa cad yahay. reer Awdalna waxaa weeye masalan Khaatumo oo kale inta tageen oo shir fariisteen ayay midoobeen oo waxay ku midaysan yihiin odayaashoodii dhaqanka iyo siyaasiyiintoodii, weliba odayaashoodii dhaqanka garaadadoodii intay fariisteen bay wax midaysan la yimaadeen. wixii midaysnaa maalinkii ay ku dhawaaqeen second dayna dowladda Soomaaliya way soo dhaweysay. sidaas la mid aanan hadda dhiirigelinaynaa. su-aasha kusoo dhawo wasiir inta aanan saddexda kale u gelin. haye waa mahadsantahay Xaraare. Cabdifatax waa mahadsan yahay. runtii waa laba su-aalood oo muhiim ah. ajendaha Soomaaliya waa sax, wuxuu ku soo aadayaa Soomaaliya oo ku fariisatay waana ilaahay mahadiis kursiga iyo iyadoo damacii soo jireenka ahaa dhowrka boqol oo sano ama 1000 sano gaarayay dowladda aan dariska nahay Ethiopia ay ka lahayd dhulka Soomaaliyeed uu soo cusboonaaday sanadkan bilowgiisii oo heshiis baatil ah oo ay la gashay taliska hadda Hargeysa jooga oo Muuse Biixi. heshiiskaas mowqifka dowladda Soomaalidu wuu caddaa adduunka oo dhanna iyo ururada kala duwan oo AU ka mid tahay, IGAD ka mid tahay, jaamacadda carabta, ururka islaamka, qaramada midoobay xitaa in dhammaantood ay inkireen oo diideen heshiis beenaadkaas. aysan wax bays ah oo sharciyana uusan ku fadhin. ninka Abiy Ahmed hogaamiye hadda Ethiopiana wuxuu dee soo cusboonaysiiyey awal dee dhulka Soomaaliyeed xukunka qowmiyaddan hadda uu ninkani ka dhashay weligood wax ma xukumin. labadii qowmiyadood kale oo wax soo xukumi jiray weligood dee damacan way lahaayeen, laakiin isma oranayn qowmiyaddii ugu dhoweyd dadka Soomaalida oo dariska la ahayd oo xuduudda la lahayd oo dhaqanka Soomaaliya taqaanay wixii dhex maray Soomaali iyo Ethiopia 600 sano lasoo dhaafay taqaanay. qof ka tirsan baa dariiqii qaldanaa iyo damacii guracnaa kusii socon doona cidna isma dhahayn. laakiin anigu waxaan isleeyahay way dhacday. waxaana taas suurto geliyey waxa weeye kooxda hadda Hargeysa joogta oo gooni-goosadka ah oo runtii xaalad disparate ku sugnayd oo quus iyo niyad jab xoogani uu soo wajahay mashruucii ay gadayeen 30 sano lasoo dhaafay uu burburay, taasina ay noqotay inay kula cararaan halkaas oo ay isku badbaadiyaan arrintaas oo ay
fadeexadii ay la kulmeen sanadkii lasoo dhaafay bilihiisii agosto iyo wixii ahaa inay halkaa kula cararaan oo maaragtay ay noqoto iyo taliska Ethiopia oo asaguna runtii dadkiisii iyo dhibaateynayay oo burburiyay magaalooyin iyo qowmiyada dhan kasoo taqalso marka inay intay isku darsadaan naf iska raadiyaan arrintaasi dowladda Soomaaliya dee kursigan hadda wuxuu keeni doonaa in the position weyn laga sii istaago waana wax ilaahay isla doontay waxaanan dhihi doonaa argagixisada hadda dalka meelo ka mid a joogta iyo damacaasba kursigan difaac weyn buu u noqon doonaa waxaanan u heli doonaa dee saaxiib Soomaaliya mar haddii 15 dowladood oo kursigaas fadhiyo go'aamada adduunka laga sugayo oo haddii ay ka mid noqotay waxaan isleeyahay saaxiibo badan baan ku kasban doonaa inta ka baxsan 170 dowladood oo kale 73 dowladood oo kale oo banaanka joogta iyo 14 kale oo aan kula jirno meeshaan intaba saaxiibo waaweyn baan ku yeelan doonaa positionkeennina waa kasii xoogeysanayaa reer awdal oo aad sheegtayna runtii dee dhulka hadda oo lagula soo heshiiyey waa dhulka awdal waajib gaar ah saaran dadkaas marba dad baa waajib saarnaayeen oo dadka Soomaaliyeed maantay awdal ayaa culays badanay fuulay aniga wasiirka arrimaha gudaha markaan ahaa waa la kulmay eliitka iyo dadka waxgalka ah reer awdal iyo odayaashaba oo iyo xildhibaanada iyo senatoriska hadda dowladda ku jira meel fiican baana runtii wax la wada dhigay dowladda Soomaaliyana way maaragtay mowqif fiican baan ka istaagnay xafiisyo ay ku leeyihiin howlahooda lagu wado dhexdooda in ay soo midoobaan oo ay kalimadda soo mideeyaan waa kula dardaaranay dee dowladda Soomaaliyana way garab taagantahay wax xalaali wixii dadka reer awdal ay maaragtay ku soo heshiyaan oo hadday maamul tahay haddii wax kala tahay intaba waxaanan aaminsanahay in dalka Soomaaliya aysan mashruuca kala go'a iyo package-ka isku xiran oo la isku xiriyay ayaamihii lasoo dhaafay inuu wax badan uusan sii jirayn oo burburay package-kaasi gobol walbaana ay tahay inuu ku soo xirmo dowladdiisii ummiga ahayd dowladdii weynayd Soomaaliya inuu ku soo xirmo reer awdalna waa mowqif fiican bay istaageen Boorama iyo Lughaye iyo dhammaan magaalooyinkii kala duwanaa markii mashruucani uu soo baxay way dadku si mowqif fiican bay istaageen sidaas la mid ah dadka Burco iyo Hargeysa degan iyaguna mowqifkaasi iyo ay oo kale istaageen marka mashruuca oo Muuse kaligiisu ku noqday ilaa haddana dadka degan waqooyiga Soomaaliya looma soo bandhigin wixii uu kula heshiiyey taliska Ethiopia waa wax iska kontrabana oo maaragtay la qarinayo oo kolkasha hal nin uu ku wato Ethiopiana waxa weeye dadkeedaysa caana qabow u lisayn dadkeedaysa ubax u dhiibayn waxa weeye dadkeedii buu taliska hadda meesha ka taliyaa oo dhibaato weyn ku yahay kursiga marka Soomaaliya shalayna waan sheegay waxaan ku matalnaa Ethiopia lafteedaan ku matalaynaa oo qayb bariga Afrika maadaama ay ka tirsan tahay shucuubta reer Ethiopia oo runtii dulmanaa sanawaadkii la soo dhaafay oo dhibaatooyin badan loo geysanayay kursigani wuxuu u noqon doonaa voice iyo cod waxa lagu hayo gudaha dadkaas lagu dhibayo sida bariga Afrika magaalo dalalka kala duwan oo kale wixii dhibaataha ka jira ama wixii wanaag oo ka jiro lagu endorse gareynayana kursigani wuxuu u yahay codki geyn lahaa meeshaas marka guud ahaan mowqifka dowladuna waa cad yahay reer awdalna waxa weeye masalan khaatumo kale inta tageen oo shir fariisteen ayay midoobeen oo waxay ku midaysan yihiin odayaashoodii dhaqanka iyo siyaasiyiintoodii weliba odayaashoodii dhaqanka garaadadoodii intay fariisteen bay wax midaysan la yimaadeen wixii midaysnaa maalinkii ay ku dhawaaqeen second dayna dowladda Soomaaliya way soo dhaweysay sidaas la mid aanan hadda dhiirigelinaynaa waana la garab taagan yahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasiir adiga mudan saddexda xiga ayaan fiqi hadalka uu ku hadlayo damujadiid dadkan u shaqeeyo dhan oo fiqi ka mid yahay dhagahoodu isma maqlaan
ninkan xasan iyo madaxweynaha sheeganaya wuxuuba diidanaa khaatumo inay soo baxdo. wuxuu ku leeyahay khaatumo waa soo dhoweynay. khaatumo intaasu jare dhaheen dowlad baan u aqoonsanay, haddana way ka saareen waxbarashadii iyo waxyaabihii hay-aduhu ay ka caawin lahaayeen lacagtoodiina xasan sheekh maxamuud wuxuu u gudbiyey somalilan. khaatumo wuxuu xasan u hayo ma jirto. waad aqoonsaduu leeyahay. waxa keliya uu rabo waxaa weeye khaatumo iyo inuu isku diro puntland, oo puntland cadurnimo u qabo darteed uu khaatumo iyo puntland isku diro. marka isnacaanna khaatumona uu u soo jeestuu rabaa. laakiinse xasan wuxuu rabaa khaatumo inay somalilan ka mid ahaato. marka fiqi waxaa looga baahan yahay fiqiyo inuu isweydiiyo madaxweynaha ma ogol yahay dowlad goboleed reer Awdal inay samaystaan. uma malaynayo, maxaa yeelay khaatumusuba u ogoleen oo uu rabaa inuu somalilan hoosgeeyo. taasna waxaa ku cadaynaysa khaatumo markuu dagaal ku socday xasan iyo muuse biixi iyo ismaaciil horar kulligood somalilan bay isa joogeen. muuse biixina waxaa laga sheegay xasan sheekh lacagan ka maleynan buu isiiyey. dadku waxay dhahayeen 3 milyan buu siiyey. lacagta hub ku soo gadanayay oo somalilan lagu baabiinayay oo muuse hub ku soo gadanayay xasan baa bixinayay. xasan marka maba uu rabo fiqi baa sheegaya xasanka aad madax u tahay wasiirka arrimaha dibadda maba uu rabo soomaali inay heshiiso dowlad goboleed qolo walba inay yeelato. isagaama rabinba. xasan wuxuu rabaa inta dhisa inuu kala daadiyo. ciidamadii farmaajo uu dhisay oo dhan xasan waa ka soo jeesta. markuu u tegey xataa uu ugu tegey Eritrea waxaa laga soo sheegay ciidamadii inuu yiri yaa tihiin, asagoo halkaa ka wada qabiil oo leh oo u qababa ciidamadu inay yihiin kulligood daarood uu samaystay madaxweyne farmaajo. marka ciidamadii uu soo kaxaystayna xasan waa uu baabiiyey. marka xasan hadduu wax qabanayo fiqiyow balcad iyo xamar dhexdood ha nadiifiyo. dowlad goboleedyaasha dhisanna khaatumo intaas jeer buu waa aqoonsaday yiri, haddana uu ka ceshta, haddana uu yiri waa aqoonsaday. meesha ciyaal ma joogaane. hadda ilaahay amarkiisa horta waxaa dhiman 1 sano iyo wax yar. intaa waa loo adkeysanayaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa xasan inuu na dhaafiyo oo si khayr nagu dhaafiyo. laakiinse xasan hadduu wax qabanayo intuu iska daayo khaatumo iyo Awdal labadaba intuu iska dhaafo xamar iyo agaarkeed ha nabdayo keliya. reebaydhawo dhibka ku hayaa ka daayo, inuu burburiyo raba ha ka daayo. xasan asaga ayaa nabadda hortaagan. dowlad goboleeyaasha dhaqaalahoodii asaa goostay. siciidani asaa la dirirsan. asagaaba leh siciidani iyo dowladda puntlandba waa burburinayaa. aranjan wuxuu siiyaa baa liyi lacag gaara. waa hubeeya lacagna wuu siiyaa asagoo raba inuu u adeegsado puntland si ay u burburin lahaayeen. adiga laftigaaga fiqi afkaaga waxaa laga hayaa adoo dhahaya cali xooshow somalilan lama taataaban, puntlandna weligeed lama taataaban. taataabashay kaa rabtaa puntland. marka fiqiyow waa lagaa horeeya, waa lagaa dambeeyaa. filinkaas akhrinaysid mid shaqaynaya maaha. dowladda waxaa ka taqaanaana ma jirto. xasanna dadkii soo saaray oo puntland ugu horeyso oo siciidan ugu horeeyo ayuu ku jasaaray.
cuqubada heesa oo hadda uu la haarsan la'yahay oo habeen walba diyaaraddu saaran yahayna waa Siciidani cuqubadu ka galay weligiisna qaboobi maayo weligiisna ma qaboobayo marka barnaamijka maanta halkaasaan uga baxayaa soomaalida waxaan leeyahay ra'yigiina commentiga ku soo qora fiqi hadalkiisa nin iska hadla weeye masjid loo soo dhiibay weeye wuxuu wado bal hadalkiisa intaa dhegaysataan wax idin la tahay commentiga ku soo qora laagtiga subscribe-ka barnaamijka noo saara youtube waad ku mahadsantihiin daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu